dagaalkaasi meel fiican uu marayaa waa dagaal waa dadnimadii iyo xorriyaddii iyo dhowristii daaficii diinteenna ayaan dagaalkaas ugu jiraa dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ugu jiraan maanta dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro waa bogaadinaynaa waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo dowladdanna wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa male maanta in shacabka muxuu ahaay nimanka nabadiidka dalka laga xoreeyo aan ka hortagno macaluul dalkeenu inaanu gaarin markaan leenahay waxa ugu horeyso inaan shabaab ka xoreyno si loo gaaro dadkii meelaha macaluusha ay ugu dhimanayaan waa meelaha muxuu ahaay nimanka nabadiidka ay ka talinayaan dadkeena si aan macaluusha uga badbaadino aan ka xoreyno nimanka si aan u gaari karno oo aan ugu geey karno wixii ay ku badbaadi lahaayeen marka dagaalka nimankaasi waa sidaas fariin qayb labaad oo fariintaas amniga ku saabsan oo ku daray waxay tahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan nin kastoo shabaaba waa hadaf ciidan kastoo shabaaba waa hadaf qof kastoo shabaaba waa hadaf sida ay dadka Soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf agtooda ha ku dhaawacmin hana ku dhimanin ka fogaaw waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga dul degaa wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan shacabka Soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab jooga maxkamadahooda yaan la tegin beenbeenta ah meelaha dadaan wacyi gelinaynaayo waa wacdinaynaa ilahin wacdigooda waa wacdi qaldanayaan loo tegin meelaha ay joogaan yaan laga dhawaanin meesha uu yimaado tartiib ha looga dhaqaaqo qofkii afduubtaan afduub ku haystaan waa meeshiisa garaawshiyuu leeyahay ka fogow ayadana waa talo kale fariin kale oo shacabka Soomaaliyeed aan gaarsiinayno haddii alla yiraahdo dagaalka shabaab ha ku dhimanin adiga oo aan ayaga ka mid ahayn oona ognahay dadka Soomaaliyeed inay shabaab ka mid ahayn oo ay ku mabda ahayn ay ku rabitaan ahayn ay ku magaciisa ahayn dadka Soomaaliyeedow walaalayaal ka fogaada shabaab aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi